الحمد لله الذي لا يجري عليه زمان ولا تحويه جهات ست كسائر المبتدعات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، فيا أيها المباركون والمباركات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد التحية إن شاء الله isku soo naqad keenan barakaysan ee ku soo aaday bishii barakeysneed ayadoo gabagaba ay tahay tobankii hore oo awaluhu raxma wa awsaduhu maghfira wa aakhiruhu citqu min annaar oo yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan kaga faa'iidaysano kelimo gaaban ee ka hadlayso axkaamta soonka, gaar ahaan soonka waxyaabaha buriyo iyo waxaas waxa ka dhalanayo. ilaan soonkii waa buray, maxaa xugna oo ka dhalanayo? soonka fadaaishiisa iyo isku waanintiisu waa shay mar kasta madluuba ee loo baahan yahay mar walba, waana u taagan yihiin muslimiinta. laakiin baahida weyn waxa loo qabaa waxay tahay axkaamta iyo fiqiga ka dhalanayo soonkii. insha allahu tacaala marka maanta waxaan diiradda saaraynaa saan ka hadalnay axkaamta soonka, qeybta soonka waxyaabaha buriye ka hadasha iyo waxyaabaha ka dhalan doona hadduu ilaahay yiraahdo. culammada islaamka waxay dhahaan marka insha allahu tacaala soonka waxaa buriyo ikhwata alkiraam 10 shay. axad ka sooman soonka waxaa ka buri kara 10 shay. kan koowaad wuxuu yahay waxa gaaro si kas ah ula kaca, weliba qofka gudahaasoo laga hadlaayo manaafida dabeeciga ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadanka ugu talagalay oo shanta ah. qofka wixii ka galo ayaa waxaa laa waxaasi waxay gaareen joofka, iyo sidoo kale wixii u gaaro madaxa kas u gaaro oo ay madaxa dhex galo. marka manaafidaas shanta ah maxay kala yihiin haddii la yiraahdo, waxaan leenahay waa afkii iyo sankii iyo dhagaha oo 3 iyo labada sawateen ee hooseyso meesha saxarada ka timaado iyo meesha kaadida ay ka timaado. shantaas manfad wixii galo ee joofka u galo waxaasi soonka way burinayaan. sida loo joojiyaba in wax la cuno kale, afka wax laga cuno ay gudaha u galaan ayay wax walba ay mamnuucu yihiin. intaan ka hadalnay wax la geli kara ma lahan, hataa caafimaad ahaan. hadda hadii la qofkii gaas tariigo qaba tuba afka laga geliyo joofka ay gasho, yani calooshay gaari kamarada in laga arkaa la rabaa, soonka waa burinaysaa. wakadalika xibnaha hoosoo dhan wixii la geliya haddii qofka kaadida ku ceshoontay tuba la geliy kaadida loo keenayo kateetarkii, waxaa leeyahay yani waxaan manfad dabiiciya ka gashay, waxayna u gudubtay gudihii oo joofki ah. saas darteed soonkii way burinaysaa. isla meeshaasi waxaan isku baraarujinayna in badan su-aalaha ka yimaadaana waxay tahay shantaas manfad sidee loo cabiraa? waxaa loo cabiraa mathalan dhegteyda waxaa joof u ah manfad waay. waxaa joof u ah mathalan qofka inta fadhiyo markuu dhegteyda fiiriyo meesha uusan u jeedin, haddaan qori inta qaato meelo u jeedin qorigaas oo gaaro, wuxuu gaaro qorigaas joof. waxa laga hadlaya waa sharci, qorigaasi cunto maahan. laakiin sharcigii tacabudiga ahay, tacabada allahu subxaanahu wa tacaala almuslimiina siyaaman, soon axkaantiisa wato ilaahi subxana wa tacala wuxuu ku adoonsaday muslimiinta. marka waxaasna laku adoonsaday barashadooda waxay ku xiran tahay marka inaan si daqiiqa u fahmno shantaas manfad oo dabiiciga in la ilaaliyo. maa wasala camdan ila aljawfi wara'si markii la yirahdo xukunkeedu qaabkaasoo ku baxa. ma dhigi karta xataa waxaan waa yaraayeeno fuqahadu waxay dhahaan walow qadra simsima, xataa sisin qadarkeeda ha naqato, dhuuracase wax la eg ha ahaato, ow aqala wax ka yar. haddaa dhilad waxaan sin waa ka yaryihiin xataa lama ongolo inaa afka gelisid oo laqdid gudaha ay galaan, lama ongolo waxaasoo dhan. marka saasa waxaa loogu ongolaaday gabdhaha sooman afurka markay sameynayaan shaygan cusbada inay ka badatay inay ku yartahay inay dhadhamiyaan, waxaa loogu tala dhadhankaas joofka ma gaarayo. waa inuu qofka carabka bis ku dareemo, carabka waa inuu ku dareemo isla markiina uu ka luqluqdo oo dhadhankaas qofka uusan dhunxin. laakiin waa inuu aada uga dadaalo. waxaa kasii haboon marka inuu qayaas ku kariyo waxba uusan dhadhamin, laakiin dhadhamadaasi uu carabka bis ku ogaado soonka ma burinayso. maxaa yeele waxaan ka hadlaynaa joofka wixii u gudbaayo soonka buriyaan dhahan iyo madaxa. wakadalika haddii ay tahay waxa gudaha galay qofka u galay biyo dhibic ah, ma dhihi kari biyo yaray ahaayeen, xataa hadduu ku luqluqanayo waa inuu isilaaliyo. markuu luqluqanayo qofka soo sooman maalintii salaad subax markay dhalato ilaa maqribkii, qof markuu luqluqanayo waa inuusan isla taagin luqluqashada sidii malmadashada camal
iyo istinshaaq oo kale qofkii looma ogolo inuu ku xeel dheeraado waa inuu si asluubeysan walba sunnadii ugu sameeyaa isagoo sunno sameynayo lama rabo inuu waajibka ka buro qaybtaasi waxaan dhahnay koowaadii waa wixii gudaha gaar qaybta labaad waxaan leenahay xuqnadii daawadii camal wax daawa sumboosta ahaataya iyo daawo kale ahaataya oo qofkaasi loo isticmaalayo fi axadi sabiileyni ti haddoo kaleeta le waay xataa kateter hadii axadi sabiileyn waxa waaye waa xibinta ay ka timaado saxarada iyo meesha ay ka timaado kaadida labadaas meel ayaa waxaa la diidan yahay inay ayagana wax galaan waxaa kaloo fuqaada ay dhahan walxuqnatu fi lqubuli waduburi mufadira hore iyo gadaalba wixii daawahoo la geliyo soonkay buriyaan ayadana waa in aada looga digtoonaado waa manaafida oo manfadka dabiiciga ah oo ilaahi subxana wa tacala dabiici ka dhigay isla meesha waxaan uga faaideysanaa marka qofka haddii muruq laga talaalayo kale ee muruq qofkaasi laga duro amba qofkii isla lagu sameeyo in cirbad lagu duraayo farta ee maqaarka bis ay durayso amba laga gelinayo sharyaanka xididka ay isticmaalayso xataa ilaahu moo qof dhiig u shubo oo inta la suro tubadii dhiiga dhuuqaysay liiter dhiiga laga shubo qof walaala loo shubo waxa soonka ma buriyaan maxaa yeelay meesha wax ay galeen manfad ma ahayn saas inaan ufahmna ayadan daqiiqa waa muhim marka labadaas macno ayay soonka ku buriyaan dhaani midka saddexaad waxaan leenahay walqay-u camdan yacni mata kas la iskaga keeno nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu dhahay man daracahu lqay-u qofka mataga oo soo dhaafo wahuwa saayim na soo sooman falaysa calayhi qadaa wax qado lagama rabo waman istaqaa camdan qofkii kas matag iskaga keenane falyaqdi ha soo qaday udha nabiga alayhi salatu wasalaam mataga marka qofka hadduu dha waa mataga labaa loo kala qaadaa hadduu caday iskaga keeno kas soo cadaysa xataa hadduu ka yimaado soo dhaafo laga hadli maayo amba oo qore caadiya geliyo amba fartiisa oo iskaga keeno qofkii soonkaasa iska buriye soonka waa ka buri laakiin qofka soo xanuunsan hadduu mata kasoo daato uu ka luqluqana hadduu soonka sii wadi karo oo xanuun zaa-id haynin soonkiisao sii wadana hadduu xanuun zaa-id ahaayana soonka waaba xaaraan u ka yahayba maxaa yeele waa ka hadli doonaa qofka hadduu jiran yahay waxaa ibaax loo siiyey inuu afuro haddii jiradiisi ay adag tahayna qofka xaaraani ka tahay ma soomanaan karo matagii qaabkaasaan uga hadalnay walwadu camdan fi lfarji waa yahay ninkan xaaskiisa maalcadii lama seexo karaa soo sooman soonka waa ka buraa walow lam yanzil ilmaniy wax mani ah iyo wax biyo ah iyo wax shaawaabaya ka imaan haddii ou rabo maku andaco karo wax biyo igama imaan haddii macnahaasi meesha ay yimaadaan soonka waa buri qeybta afraad saasaan uga hadalnay walinzaalu can mubaasharatin qofki si mubaashara camal asigoo la fadhiyo xaaskiisii oo taabasho camal ayaa qofkaasi waxaa ka yimid haddii la yihahdo shahwo amba biyo sababtay uga yimideen la fiirina bisababi lamsin taabasho korkeeda ou taabtay ow taqbiilin amba dhunkasho ou dhunkada qofkaasi haddii ay yihiin iyo wixii la halmaalo waxaasoo dhan qofkaas soonka waa ka buriyeen maalintaas intii ka dhimanna waa inuu maalinta ixtiraamaa uusan afkiisa waxbadgelin sida qof sooman maalintaasna oo soo qadeeya marka waa ugu yaraan shayga qofka waa inuu ka fogaado waay xaaskiisa maalcadeey intii uu sooman yahay si wax dhibaataa soonkiisa aysan ugu imaanin haddii ay dhibkaas ou dhacaan soonka waa buri waaya xeelkii oo kale gabadhi haddii uu ka yimaado amba nifaaskii dhiig umuleedkii oo kale walow qubayla alguruubi afdarat xataa markii ay qoraxda dhici rabto hal daqiiqa ka dhimanta ay ka yar haddii gabadhii xeelkii uu ka yimaado xeelka kusoo boodo amba gabadhii ay umusho soonka waa buray maalintaasi waa lasoo qadayna waayahay wakadalika junuun qofki haddii oo waasho walow lilaxda ilbriqsi ba la ka dhigo soonkaasi waa buray waa lasoo qadayna waridatu qofki diintii uu ka baxay walciyaadu billaahi qofkaas soonka waa ka bura sigana soonka waxyaaba buriya riddada kamid tahay oo diinta soo uga baxay maaha qofki inuu kaniisada gelaya keliya maahane qofkii maalan xataa qool xun hadduu ka yimaado oo ilaahay caayo ambiyada ilaahay oo caayo oo sida culammada islaamka ay u xadeeyeen xadkii islaamka oo uga baxo intaasi wuxuu afkiis ka sameeyey amba wuxuu gacantiis ka sameeyey kitaabka qur-aanka unta qaado yiri waxaan buug waaso wuxuu ku daray qashin qubki oo kale waxaasoo dhan diinta islaamka looga baxa halis waa marka riddadii waa baab gooniya oon ka hadli doonne qofka ridda haddii lagu xugmiyo oo wax riddaa la yimaado diinta inuu ka laabtay oo ka baxay qofkaasi soonka waa ka buri qeybtan kusoo gabagabayna waxay tahay waliqmaa qofka waa suuxsan yahay laga bilaabo salaadii subax iqmaa haafa lama rabo salaadii subax ilaa maqribkii qofki ogaal ma labo maanta dhan ogaal malaya qofka waa suuxsanay qofkaasigana soonkii uma jiro maalinkaas 10kaas shay walaalayaal yaan halmaamin 10kaas shay ayaa waxaa la yihahdaa soonka way buriyaan waxaan inta uga faaideysanaa marka mulaaxado yar baashaan soomaalida ay isticmaalan la yihah goojada kolley 3 manfada lagu shubaa 3 meel mar waxaa lagu shubaa sanka marna waxaa lagu shubaa dhegta marna waxaa lagu shubaa indhaha
haddii lagu shubo sanka iyo dhagaha si fiican loo dhegeysto soonka waa ku buraa. haddii laakiin indhaha lagu shubo qofka maalan indhaha xasaasiye kahay amba indhaha xanuuna dhaktara usoo qoray maal cadii soo sooman dhiis ku shuba karaa. indhaha manfad gudaha u gudbaayo ma lahan. marka indhaha haddii lagu shubo goojadii soonka ma burinayso. dadku waxay ku leeyihiin culamada qaar waxay dhaheen goojada soonka waa burinay, qaarna waxay dhaheen soonka ma burinayso. ma qofkaasaan dhegeysan ama qofka u sheegaya aanba ku aqoon dhaamino waa la hadlaa u hadlay. marka waa la hadlaa sharci islaamka ma qabato. sharci islaamka waa in si mafhuuma ee la fahmayo sharciga oo qabo looga hadlo. waxaan dhahnay goojada haddii sanka lagu shubo iyo haddii dhagaha lagu shubo soonka way burinay, laakiin haddii indhaha lagu shubo soonka ma burinayso. marka goojada saas daan uga baxnay. waxaan kaloo adkeynaynaa oo su-aasha inta badan ka timaada dadka hadda waxaa laga duraa coronavirus oo kale laga talaalaa. talaalkaasi dabcan muruqu ku socdaa, meel manaafidi shanteed aan ka hadalna kuma socdo. halkaas muruqa ee laga talaalaya qofka hadday tahay iyo hadday tahay xataa qofka haddii sikurow oo qabo oo maqaarkiisa inta cirbajag lagu siiyo dhiiggii laga qaadanayo amba xididka xataa inta tuba la surto dhiig badan laga qaadanayo, waxaasoo dhan soonkii ma buriyo. marka inuu cadiya umalaynaa. hada wallahu aclam. soonka waxyaabaha buriyo intaasaan kusoo gabagabeynay. inta kaleeto afcaala oo la yihahdo soonkay buriyaan soonka ma buriyaan. waxaan u gudbaynaa marka soonkii waa buray, maxaa ka dhala doono soonki haddii uu buray. qofkan soonkii uu ka buray maxaa uxuguna. waxaan u kala qaadaynaa ayadan afartaasoo aan usii kala qaadi doono 10 si basiida loo fahmi karo. afarta maxay tahay? mathalan afarta waxay tahay qofkan soonka haddii uu ka buray waxaa ku waajibi karo qado oo keliya mar. qofki soonka ka buray mar waxaa ku waajibayo fidye keliya. fidye waxay tahay waa ka hadli doonaa. qofka soonka hadduu ka buray waxaa ku waajibi karo qada iyo fidyo oo wada socdo. qofka hadduu soon ka buro waxaa ku waajibi karo qado iyo kafaaro. afar aan kala qaybin, afartan ku celiya mar kale. qofka soon ka buro waxaa ku waajibi kara qado bis mararka qaar. mar waxaa ku waajibayo fidye bis. mar waxaa ku waajibayo qado iyo fidye oo wada socdo. saddex saasay ku tahay. midka afaraad marna waxaa ku waajibayo qado iyo kafaaro. wax dhan waa sharxi doona haduu ila yihahdo. afartaas markay ka hoos bixin wax shanaad ma jiraan oo ka dhalan karo soonkii buri. ilaa waxaan dhana maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha soonka buriyo iyo waxa ka dhalanayo. soonka waxa buriyo 10 u kala qaadnay, 10kooda waa cadaynay. marka waxa ka dhalanayo maxay tahay marka? ima inay qado ka dhalato, inay fidye ka dhalato, inay qado iyo fidye wada jirto qofkan ay ku waajibto ay ka dhalato, inay ka dhalato qado iyo kafaaro wada jirto qofkani oo laga raboodo. waayahay intaas markaan u kala qaybino waxaan ku hormaraynaa qaybta ay ka dhalanayso qadaha bis. qadaha bis waxay ku waajibaysaa 5 qaybood markii uu soonkooda ku halaabo. 5 qayb soonkooda ilaa soonkii qaab uu ku halaaba. qaabka soonka uu ku halaabayo ayaa wuxuu gaaraa ilaa iyo 10 u kala qaybinayna sida 10 hore camal. 10kaas marka waxaan leenahay 5 qaybood qado bisa laga rabaa. 2 qaybood waxaa laga rabaa fidyo waa 7 hadii 5 laba lagu daro. 2 qayboodna waxaa laga rabaa qado iyo waxaa laga rabaa iyo fidyo wada socdo. 1 qayboodna waxaa laga rabaa waxa ka dhalanayo qadihi iyo kafaaradii bis. 10kaas aan kala qayb 10 ku celina mar kale. 5 qaybood oo soonkii ka buray waxaa laga rabaa qado bis. 2 qayb waxaa laga rabaa fidye bis. 7 baxday. 2 qayb waxaa laga rabaa qado iyo fidye wada jiro. 1 qaybna waxaa laga rabaa qado iyo kafaaro. 10kaas leeyahay wax ka dhalanayo. waxaan dhaanay soonka waxyaabaha buri 10 aan kusoo koobnay. haddana waxyaabaha ka dhalanaya waxaan kusoo koobnay 10kaas. 10kii marka waxaan ku sameynaa marka aan kala qaybinaa hadeer marka. shanta oo markii soonkooda uu halaabo waxaan u hormarinaynaa qadaha bis laga rabo. intaas shanta ilaa shantiya badan meesha badan ka bilaabayna si u fududaato. qofkii soonka ka tagay cudur la-aan ayadoo maalin ramadaana wax cudura ma leh. yani maalan waxaa la dhihi jiray shayaadiinta waa xirxiran yihiin, laakiin qofka hadduu gaaro marxalatu shaydaan maba u baahnaba asaa qurac iska karsaayo ayadoo la sooman yahay ramadaan ay tahay. qofkii marka fasaadaas ay taabatay oo kale ilahan ka maangalnay maalin caday soona ramadaana iska cunay, qofkaasi maxaa laga rabaa? hadii qada laga rabaa. wakadalika isla mawduucaas waxaa kasii dhalanaya marka qofkii hadda maba soomin yirmaano, qofkii wuu soomay laakiin haddana wuu afuray badar iska cunay, raashin iska cunay, wax soonka buriyo ayuu qofkii sameeyey laakiin jimaac ma sameyn. jimaac bis laga soo reebaa. qofkaasi waxaa laga rabaa qado. isla qofkii la ka dhignay bis qof soonkii ka tagaba iyo qof soonkii wuu soomay saakay laakiin galabta iska afuray, saacad warba iska afuray, sharciga ma uusan dhameystirin saacadii laga rabay.
qofkaasi waxaa laga rabaa qado kow, dadkaasaa ugu badan in la yirahda la rabaa qofkaasi waa inaa qado la timaado oo soonkaas soo qadaysa. qofkii soonka u afuray jiro darteed, maanta xanuun zaa-idaa qabtay, qofkii soonkii wadi waayey, waxaan dhahnay haddii qofka xanuunka oo ka bato, waman kaana mariidan oo calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar oo ilahi qur-aankiis ku yiri. qofka hadduu jirin amba safar adag uu ku jiro waa inuu soonka iska furaa. safarka marka waa safarkan salaada laga gaabi karo oo ah 83 kilomitr ayuu safar ka bilaabanaa. qofka marka safarka ruqsoo haystaa waa iska furi kariyaa, bal haddii soonkii safarkii oo mashaqo kala kulmaayo waxaa afdal ah inuu soonkii furo oo ruqsada qaato. marka yaana ugudbina waxaan leenahay jiradii, qofkii waa jiraday soonkii oo iska furay qado bisa laga rabaa. qofkii safar dheer oo galay oo 83 kilomitr wax ka badana wadanku ka baxa doo rabo, safarkaas dheer oo galay qofkaasi oo intaasoo 1000 kilomitr ahaata amba 83 kilomitr ba ahaatayaaba, safarkaas dheer oo galay oo soonkii u afuray. way dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayadoo dhowr asxaab ay la socoto oo nabiga calayhi salatu wasalaam soonkiis ka watay, asxaabtina way xamili waayeen, way fureen ilaa cabdullahi ibnu rawaxa maani. marka waa loo ogolaya qofka haddii uu ku dhibtoodo inuu furo ayaa sii fadli badan weliba. marka ruqsadaas ay haysteen waa dood kama dhalanba, ruqsaa la haysta qofka soon ku dhibtoona xataa furi karaa hadduu safar gelayo. laakiin wax ku sugaya maadaamay tahay intaadan qadeen xataa lagu oofsan karo oo adiga malkameed buu ku daba taagan yahay oo maarata malkameed ku hor taagan yahay oo saf aa ugu jirto dhimasho goora dhimaysa aadan ogeyn, weligaa dib udhig laguma sameeyo soonka. haddii aad markaas safarkaas uu fudud yahay soonkaaga inaad iska wadata afdal. haddana diyaaraday adduunya lagu socdaa iyo gawaari qabow ahayo, haddaan kuleel iyo oon ku dilayn waa iska wataa. marka 3 qeyba intaas uga hadalnay. qeybta afaraadi waa gabadha xeelka qabto iyo gabadha umushay. gabadhii xeedaa ku dhacay amba umule waa umushay soonka iyadoo lagu jiro amba ayadoo umush ku jirtaa soonkii dhashay, dadkaasi xukunkooda waxa waaye waa inay ayagana soo qadayaan. afar uga baxan intaas: qofkii soonka kas uga tegay, qofkii soonkii sabab uga tegay jiro, qofkii u afuray inuu safar ku jiro, iyo waxaan isku ximaarnay labada ah gabadha xeelka qabto amba gabadha umusha ku jirto. afartaas qeyb qada bisa laga rabaa. qeybta shanaad marka waxay dhahaan fuqahada waa gabadha xaamilada ah iyo gabadha murdicada ah ee cunuga nuujinaysa, cunuga oo nuugayo maadaama haysto 2 sano. walwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn, 2 sana cunug ku jira oo nuuga, inay mataayin xataa laga yaaba caanaha ay ku yar yihiin. marka waxaa layidhaha in khaafataa calaa anfusihima, hadday naftooda u cabsadaan. gabadhii xaamilo waayo waxay tir maadaama xaamilata cunto ma cuni karta, habeenko dhan waa ma tagaysa, wadacataa waa rafaadsan tahay. marka soonka ay xamili weyso, soonka saasay u afurto, nafteeday u cabsatay, gabadhaas nafteeda u cabsatay, iyo gabadha ilmaha nuujinayso ilmaha aaday u nuugayaan, nafteeda u cabsatay. marka wadniha jiid maayaba soonkii xamili laada. hadday naftooda u cabsadaan gabadha xaamilada ah iyo gabadha cunuga nuujinayso, labadaasi way afurayaan. xukunkooda muxuu yahay marka? 5 aan kasoo hadalno oo dhan marka laysku keeno qadaau yawmin biyawmin faqad. qofkii hal maalin buri halka maalin soo qadayna, qofkii 2 buri labadii soo qadayna, qofkii bishoo dhan ay ka tagtay sida gabadha umush ku jirto kale laga yaabo bishan inay ka tagto, amba gabadha ilmaha nuujinaysa bishoo dhan inay awoodi weyse. dadkaas qof walba intii maalin oo dhaaftay ay soo qadayayaan. warkaas inuu cadiya umala 5taas qeyb waa qofkii soonkii dabdar uga tegay, qofkii jiro uga tegay, qofkii safar uga tegay, gabadhii xeedka qabtay iyo gabadhii umusha ku jirtay, gabadhii uurka laheed iyo gabadhii cunuga nuujinaysa hadday naftooda u cabsadaan, taasay ka hoos bixin. 5taas waxaan dhahnay waa qadaau yawm biyawm, intii maalin ay ka tagtay soo qadaynayan. 10kii aan sheegnay ee ka dhalanaysa mufsidaatu siyaam, qofkii soonka uu ka buro 5 waa ku luqluqanay. 2da ku xigta waxaan dhahaynaa waa fidyo, dadka fidyada say u bixinayaan. fidya bisaa loo bixinaa. marka fidya samxay taasaan ka hadlaynaa. fidya marka 2 qofood bisaa laga rabaa, 2daas qofood qada lagama rabo, soonna kuma waajibayo. falaa sawma calayhima walaa qada, soon korkoodana maahan, qadana korkooda maahan. awalan asheekh alcajuuz, odayga waa yeelka, xataa maamada waa yeesha, xataa waa lamid. yacni biyaa lagu dhibciyaa, cunto yaray qaataan, wax badan ma soonaa karaan, wax badan ma baaha karaan, wax badan ma cuni karaan. waa dad ilmoobaba intay waa yeelnimada intay ka badatay. waman nucamirhu nankusu fi lkhalqi afalaa yacqiluun, tabartaa tegaysa caqligaa tegay. markaas camal dadkii ay tabar dareeyaan waa aragnaa dad oo la yirahdo war hebel sariirtuu ku aruuray waa yeelnimo darteed. dadkaasi waa dareemay inay soon xamili karin. dadkaasaa laga hadlaa marka waa yeelada zaa'idka. asheekh alcajuuz hadduu yahay oday waayeela iyo hadday tahay maamo waayeeladaba, ayaga maxaa laftirkooda u beyt alcaaqiba. haddii waxaa leeya marka waxaa laga yaabaa asoo 100 sano jirno soonka xamili karo, asoo 70 sano jiran inuu jirooloya soonka uusan xamili karin. kulli waxay isleeyihiin waa yeel, laakiin waxaa bishardi
alladii laa yataxamalu sawm soom inuusan xamili karin. odayaal waa yeela waxaa jiro 100 sano kabacdi guursado, dadkaas laga hadli maayo, soonka waa laga rabaa. kawkawlayaasha soonka waa laga rabaa. alladii laa yataxamalu sawm, midka soonka aanan xamili karina laga hadlaa. ow talxaquhu mashaqatun shadiida, soonka haddoo baroobay lahay wuxuu kala kulmaa dhibaato badan, maanta dhan wuxuu naqanaa qof suuxsan oo kale, tabardarada iyo rafaadka ma hadli karo. marka waxaa laga dareemaya yani in uu ku imaana dhib fara badan, sida qof jiran oo soontay camal booskeeda u taga. waa yeelnimana maahan, waxaa inta maanta u furta beri dhalinyaro inta naqato aad soo qaday karta maahan. maxaa lagu xadina marka qofkaas waa yeelka dhibkaas ee la kulmay? fa inahu yufdir, qofkaasi wuu afura. markuu afurane qofkaasi waxau sameynaa, wuxuu bixinaa fidyo maalin kastoo madaal badara koombada waa taqaani qumbaha ee soomaaliya raashinka lagu cabirayo, kolley nus kiilana way ka weyn tahay, kiilana ma dhamo. koombadaasi oo madaalka ah oo ayi nuuc magaalada laga isticmaalo, bariis ahaataa, qamadi ahaataa, galey ahaataa, mazaga ahaataa, waxay rabtaa raashinka magaalada inta badan laga isticmaala ugu fiican, oo haalib quutil baled ah. raashinkaas oo bixinaa maalin kasta madaal badara oo bixinaa qofkaasi waa yeelka ah, hadduu yahay nin iyo hadday tahay qof dumaraba, soonna lagama rabo, qadana lagama rabo. waa qeybta kuwaad. qeybta labaad marka waa qof jiran. haddee waxaan kasoo hadalna qof jiro u furay. qof jiro u furay maxay tahay? waa qof anaga camal oo maalin xanuunsaday amba isbuuc xanuunsaday, hadduu ra bisha dhan xanuunsaday, qofka asoo oo xanuunsada soonka waa furaan dhaanay, qana zaa'idaa qabato waa xamil, waa inuu kiino cuno u baahan yahay, sida qof hadda oo karoona kilkilay oo kale muxuu ugu yaala, waa in ciyuu laga gaarsiiyo, maraq iyo lagu daldala iyo kaniin. laakiin jirada hadda ka hadlayna waxay tahay qof jiradeeda aan la rajeynayn inay raysato. dhakhaatiirtu waxay dhaheen jiradan camal maba laga kacbo, jiradan maba laga kacbo. qofkii waa yeelnimada xadkeedi ma gaarin, waa yeelnimo xaqiisan siin, waa yeel. waa yeel maahan, laakiin jiro wuxuu qabaa khatar ah oosa ka soomi karin. jiradana jiro laga soo raysanayo maahan. marka waxaan leenaha marka hada almariid aladi laa yurja shifaauhu, qofkaasi mariidka ah ee caafimaadkiisa aan la rajeyneynin, soon lagama rabo, qado lagama rabo, waxaa ku waajibaysa fidye bis. fidye waa ka hadalna. fidye maxaa lahaa marka? fidye waxaa lahaa muddu qamxin aw gayri, hal madaal oo galey, mazago, wax yartaato bariis, oo ah calaa xasabi haalibi quuti lbaled, magaaladaas la joogo raashinka laga isticmaalo. labadii fidyada aheyd waa ka hadalna. labada fidyada maxaa waaye? waa yeelkii soonka aan u dul qaada karin, hadduu waa sooma yirahdana mashaakil kala kulmaayo, ku sakaraadayo. qofka jiran ee haddana labaa waxa waye qofka jiran ee caafimaadkiisa aan la rajeyneyn, labadaasi waxaa laga rabaa fidyo, soon lagama rabo, qado lagama rabo. 5 2 ku dar waa 7, 3 dhiman. dadka laga rabo qadada iyo fidyada wada socdo, dadkaasi waa 2 aygana, 9 si u noqdaan. waayah yaa waay alxaamil walmurdic. haddeen waa kasoo hadalna, laakiin shardig udhexeynaa fahamna la rabaa. gabadhii xaamilada aheyd iyo gabadhii ilmaha nuujinaysay, in khaafataa calaa awlaadihima, hadday waxaan dhahnay hadday naftooda u cabsadaan. hadda waxaan leenahay hadday awlaadooda u cabsadaan oo fa afdarataa, markaas iska afuraan. middan waxaa dhakhaatiirta waxay dheheen adi haddaa soonka isku sii dhibto, ilmaha caloosha ku jiro, yacni nafaqada jirkaaga adig waxaa cunto ayay helaan, marka ilmaha loo cabsadaaba. marka ilmihii cabsiya uu qabto, ilmihii hadday badbaadinaysa soonka waa fure. waxaan laga rabaa ilmihii waa cabsato soomaan, qado iyo fidyo. midda kaleo ilmaha nuujinaysani, yacni naaskiaba caano laga waayey, ilan qofkan xum cunayso waa sooman tahay, marka waa inay wax cuntaa ilmihii say naaskii caano uga helaan, ilmihii u badbaadaan. labadaas marka haddii awlaad u cabsadaan, fa afdarata ay afuraan, fa calayhima alqadaa walfidya. qada iyo fidya laga rabaa. qadadii maxay tahay? qadaa kullu yawmin biyawmin, intii maalin ay soon ka tageen, bisha dhan ahaataya iyo qeyb kamid ahaataya way soo qadaynayaan. fidyaduna waa saas oo kale, kulla yawmin biyawmin waay, maalin kastoo la qadaynayo madaal badarna waa la bixinaa. maalin kastoo la qadaynayo madaalka badarkaana masaakiinta la siinaa, madaalka badarkaana badara laga dhigaa, mana la shiidayo. waaye qeybta labaad marka waa qeybta faraha la iskaga gubtay, oo dadka badanaa ay faraha la galaan, masaa-ishoodan ay soo laalaabato. qof walboo naga midan la rabo inuu si fiican u fahmo. qofkaani qadaa laga rabay oo ramadaan ah, bil ramadaan inoo soomaa laga rabay, fa akhara siyaamahu, soonkii uu dib u dhigay. soonkaa dhihna iska buubsiyan dhamaysa maogidi, qofkii dib u sikiyaba, dib u dhigay soonkii, xataa jaa ramadaanun aakhar, ilaa uu ka yimaado ramadaan kale ayuu dib u dhigay. fa calayhi maca alqadaa alfidya, ayadoo qadii laga rabaa fidya laga rabaa. sida gabdhihii ayagoo amba xaamile ay tahay amba murdica ay tahay, cunug nuujinayso, owlaadooda u cabsaday ayuu ku xugun yahay qofkan, amba nin ha ahaado
amba haweeney ha ahaato caado inta ku dhacday 6 beri 7 beri soon ka tagtay markii laga rabay inay soontay isay u dhaysa beri amba sanadka hore wadac ay ahayd asay afurtay say beri u dhaysay soon kaleeta dhashay maxaa laga rabaa qofkaas qada iyo fidyo haddii hal maalin ahayd halkaas maalin iyo halkii madaalo fidyada haddii 30 maalin tahay 30 maalin oo qada iyo 30 madaalo badara oo fidya laga rabaa hada wallahu a'lam dhigina furo intaas waxaan uga baxnay 9 sinf 5 waxaan dhahnay qada bisa laga rabay 2 waxaan dhahnay fidya bisa laga rabay 2 waxaan dhahnay qada iyo fidya laga rabay maadaama ashka lagu soo celceli karo waa fududeynina anagana xilli dambe inoo toosoon waxaan u gudbaynaa qaybta ugu dambeysay hal qofood leeyahay halkaas qofood waxa waaye qofka laga rabo qadaha iyo kafaarada kana lagu adkeeyay dib aan u dhignay kuma lagu adkeeyay maxaa lagu adkeeyay waa midkii xaaskiisa la kulmay maalin cadii ayadoo ramadaana ayadoo maalin cadii ramadaan ay tahay iyo xaaskiisa la saxday si kas ah asigoo waliba doortay inuu waxaan sameey karo asigoo waliba xasuusan inuu ramadaan sooman yahay qofkaasi حتى كما عند عوكر يعني وحش هواء جميع مان إني كي مدان إني سن كي مان واسكومت اسكو حكومة ها مر بدو حاس كيس أو قل موضوع أي قل متى ماضو قف كاسي سون كيسي وبري حكم كيسي نوع نوعا كفارة الجربا يقضوا وياه محل الجربا قف كان راني قضية الجربا مالين تاسي سون كو اسكفس هذه أرت مالين تاسي إنه سوق قضية حق بسط سيدو كلا إسلام مالين تاسنا وحكر لنا يكون واجبة كفارة دونه qaab kan ay ku imaanaysaa tartiibtan inuu luqun mu'minada qof mu'min ah ee adoonnimo loo heesto inuu dhaqaalihi ka bixiyo xoreeyo oo yiraahdo sayidki intuu tago dhow qofkaani maxaa ku haysataa qofkan waxaan ku haystaa intaas oo lacag hadii laga sii xurway inuu wixii dhiibo qofkaasi muslimka ah oo soo badbaadiyo qof xor ah oo ka dhigo waa qodob marka maanta xilligan aan joogno arrinkaasi ma sahlana arrinkaas arrin muyassar maahan arrin sahal maahan maxaa la sameynaa marka waxaan u guurinaa qaybta ku xigto ila maraatib ay leedahay dhaani luqon in la xoreeyo waa la waayay hadda ma dhacayso isla automatic waxaan u gudbaynaa qaybta ku xigto maxay noqonaysaa marka siyaamu shahrayni mutataabi'ayni ghayra yawm al-qada wa adagta aydan 2 bil oo xariir inoo soomo waliba aysan ku jirin maalintii oo soon ka buro la qadaynay maalintii la qadaynay gooni waay 2 bil oo xariirka ah oo soomay waxay tahay kafaaradii way qadadina waa maalintii oo jamaaca sameeyay inuu soo qadeeyo intaas uu isku daray qofka waaya hadii la alla marka qofkii oo afuro khilaal shahrayn 2 bil intii loo guda jiro afuray jira darteed tusaale ahaan qofka waxa xanuunsaday binaadan way markuu xanuunsaday oo afuray fa alayhi i'aadatu siyaamihima 2 bilood soonkooda soo cilna oo soo cusboonaysiina hadda wuxuu leeyahay koow soo bilaaba qofka waxa laga rabaa bilaab cusub inuu la yimaado oo wada u laabto oo soo bilaabo 2 biloodana oo soo bilaabo qofkii marka soonkii uu ka cajisay 2 bilood isku xigtoo soomi waay qof iska bogtaan socdo mala ahay sharciga uu cudur daaray qofku waa soomi waay soonkii waa awoodi waay maxaa la sameynaa qaybta saddexaad oo ugu dambeysay oo meel aan loo dhaafin fa idcaamu 60 miskiinan waa inuu quudiyo 60 miskiin likulli miskiinin mud miskiin kastana madaal badar oo siiyo min ghaalibi quutil balad ah magaaladaas raashinka laga isticmaalane waa inuu ku bixiyo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam darsiga diin ugu soo cishto waxaan umaleynaa inuu aad mafhuumu yahay afwan in qasartu wa udra in adaltu wa ma aradtu illa al khayra ma sada'tu wa ila liqa wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh